iyadoo sanadihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ay sii kordhayeen dhulboob xooggan oo lagu hayo dadka aan ku haybta ahayn Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha iskiisu doortay isla markaasina dadkaasi lagula kacay xarig jirdil iyo handadaad ku saabsan kaaridda dhulkooda ayna aad u adkeyd in ay mas'uuliyiinta maamulka u gudbiyaan cabashooyinkooda iyagoo ka cabsi qabo dil xarig iyo tarxiil ayaa waxaa mar kale muuqaal naxdin leh isla markaana xambaarsan cabashooyin xooggan oo ay u gudbinayaan maamulka Jubbaland madaxdooda soo gudbiyay laba dhibane oo ka mid ah xogsatada magaalada Kismaayo kuwaas oo ka cabanayo dhac dhul baaxad leh oo ka dhaxeeya iskaashatada ka xogsata magaalada Kismaayo oo ay u geysteen askar ka tirsan maamulka Jubbaland Joolaqa Xirsi Daahir Xaashi iyo Maxamed Daalaco oo ka mid ah iskaashatada dhaca loo geystay dhowr mar oo kalena lagu dhibaateeyay arrinta dhulka ayaa si dareen iyo naxdin leh uga hadlay dhaca loo geystay dhulkooda waxayna sidoo kale ka cabanayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka sida xogayaha dowladda hoose Rashiid Mudulow Maxamed Naasir Guuleed taliyaha booliska Jubbaland iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Maxamed Ibraahim Yuusuf Timajile bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu yahay Joolaqa Xirsi Daahir Xaashi ahna nin naafaho dhaawaca afar jeerna la dilo isbitaalka afar jeer aan galay dhulkaas awgiis aan ugu tagnay Axmed Maxamed Islaam oo u yeeray saddexda nin oo degmo oo joogta maamulka hoose joogta oo ay kala yihiin Maxamed Naasir iyo Timajile iyo Rashiid Mudulow oo yiri dhulkaas soo hubiya xamaaligu uu leeyahay nimanka xamaaliga masaakiinta ay leeyihiin oo biyaanteerku ka dhisan yahay way tageen waa soo hubiyeen wuxuu yiri dhulka waxa iskale xamaaliga xamaaliga iskale dhulka yaa iskale xamaaliga iskale saddex jeer buu ku celi markuu ku celiyay wuxuu yiri maxay u baahan yihiin in la xaaqo waxa la umado nin intii nin markhaati u qabsada waxa waaye soo hubiyay markuu yiri u xaaqabu way tageen ayaga ayaa la wareegay dhulkii waxay kula wareegeen waxay ka gateen niman ganacsadayaal waxaan mar saddexaad ka codsanaynaa Axmed Maxamed Islaam nimankaas uu noo diray oo dhulkayagii intay hadda daraadna kaxeeyeen misana haaf ay cabireen oo intii kale ay ganacsadayaal ka gadeen oo ay ka iibsheen oo qaar waliba goboladaas Itoobiya jira ay ka iibiyeen wasiirra oo ah dawladda Itoobiya ay waliba qaar ka iibsheen inay kala bar dhulkii yiraahdeen shala 60 iyo 8 boos asagoo ah 30 baanu idin siinaynaa oo aanu nir war annaga 30 nooma qalanto dhulkayaga ma masaajid baa laga dhisayaa ma waxa laga dhisayaa dan guud oo ma waxa laga dhisayaa isbitaal inta aad naga reebteen waxba idin kama gelin baa leeyahay intaas ma qaadateen baa leeyahay haddana waxay rabaan inay inta misana ku noqdaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ay yiraahdaan dhulkii nimankii waa diiday si ay ayagu dhulka ula wareegaan waxaan kaloo sheegayaa inta aanu soo marnay oo dib dhulkaas ka soo marray 7 sano oo ay haysatay dawladdan Jubbaland inta nimankaasuna dhibeen oo ay wax noo geysteen boqolaal waa ka badanta waxaanu ka codsanaynaa mar labaad Axmed Maxamed Islaam inuu nimanka magafayaasha naga qabto oo saddexda oo ummadda Soomaaliyeed intaas nagu arkayso nagu fiirsanayso oo aanu nahay dad xamaaliya oo aanan xoolo haysan oo aanan hanti kale haysan oo meeshan buulasha carruurta uga dhisan lahayn ay tahay madaxweynuhu wuxuu og yahay dhulkayaga cidda musuq ku wata musuq iyo maasuq waan ka cararaynaa musuq iyo maasuq muxuu yahay dhulkaas madaxweynaha Jubbaland baa wuxuu u diray gudoomiyaha degmada xogayaha dawladda hoose taliyaha booliska wuxuu yiri dhulka nimanka iskaashatada ay ka cabanayaan soo hubiya ribadkana igu soo celiyay dhulkii bay soo hubiyeen dhulkii markay soo hubiyeen ribadkii bay soo celiyeen madaxweynaha way noo yeereen annagana madaxweynaha iskula laaban madaxweynuhu 3 jeer wuxuu su'aalay dhulka yaa iskale dhulka waxa iskale mudane madaxweyne iskaashatada baa leh darbi baa uga wareegsan biyaanateer oo 1 mitir ceelal baa uga qodan biyaanateerkoodii dhexdiisii baana la degay markii biyaanateerka dhexdiisii la degay
wuxuu u baahan yahay in loo banneeyo ku wareejiyo askartan ka cabanaynana waraaqay ku qoran yihiin magacyadoodu baa maxamed naasir lagu wareejiyay markii lagu wareejiyay nimankii maalinkaas madaxweynuhu lagu soo daray maalinkii bay dagaal bilaabeen oo dagaal lagu bilaabay live-ka maanta aan ku jiro live-kii ka horreeyay baa madaxweynuhu wuxuu ka horreeyay 2 sano ka hor inaan dhulkiina la ku wareejin uu isugu yeero wuxuu nimankan hadlayo Facebook ka hadlaya dhulka hadda ka hor aad soo hubiseen oo ayagu ay lahaayeen danta xageebaad geysay mee dhulkii madaxweyne hebel baadiiday waa nala xiray madaxweynuhu yiri yaan la xirin baa nala xiray maxamed naasir oo Nairobi joogaan xiray markaan maxamed naasir u tagnay madaxweynaha ka war helay madaxweynuhuna isagana soo daayay madaxweynuhu hadduu soo daayay 16 jeer buu dhulka ribood ka bixiyay dubina waxa yaga in loo baneeyo oo nala ku wareejiyo uu madaxweynuhu oo ribood ka bixiyay 16 madaxweynuhu bixiyana wax ribood ah oo laga yeelay oo nimankii fulinta lahaa ay yeeleen ma jiraan dhulka iyaga oo lagu banaanaayay maxamed naasir iyo gudoomiyaha degmada Rashiid Maduulow baa dadka hadda degan dajiyay waraaqaha safarlooga ah dadka la siiyana ayaga u jaray hadda u jareen meeshii joogay dheheen madaxweynaha Jubbaland waxay u sheegeen meeshii dad badan oo Soomaaliyeed inay degeen xal inaysan ka maarmay kiiska dhulka ku fadhigana waxa wada Rashiid Maduulow iyo maxamed naasir iyo gudoomiyaha degmada waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliyeed mucaarad ma nihin dad wuxuu leeyahay ma goobayn waxaan goobaynaa wax anagu aan leenahay hantidayadii ka muuqato biyaanateerka aad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed ay meel walba aad joogtaan iyo Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland maxkamad ka sarreysay inaysan jirin baan u maleynaya biyaanateerka adinka aad u jeedaan oo binadayadii iyo qarashkayga iyo hantidayadii saaran tahay la yiri shala dhexda lagu dhufanaya Rashiid Maduulow ninka la yiraahdo xogayaha dawladda hoose baa maal dhaweyto noo yeeray xafiiskiisu ugu yeeray odayaalba u yeeray wuxuu yiri ninkan waa nin leelkasa kala ilaarka odayaalow waxaan rabnaa dhul halka ay ku leeyeen inaanu xaqno aanu xaqnay inay xogolaadaan baa rabnaa Rashiid odayaasha aad marxaatiga maanta ka dhigatay ayagoo Soomaaliya waan kugula kalsoonahay ku Rashiid waxaan ku yiri dhulkan yaale Rashiid wuxuu yiri dhulka adinka leh dhulka maxaad ka rabtaan baan ku yiri dhulka wuxuu galaadu yiri waan gorgortanay odayaal magaalada jooga Kismaayood baa marxaati ka dhulka waxaan ka ogolanay 17 boos Rashiid wax saxiix ma kala qaadin heshiis baan gacanta isku saar intii Rashiid heshiiska ka baxay Rashiid intuu heshiiska ka baxay buu wuxuu u tagay ninka la yiraahdo maxamed naasir iyo gudoomiyaha degmada waxay soo gooyeen 30 boos dhulka iyaga in la ka siiyo biyaanateerka ummadda Soomaaliyeed u jeedo oo hantidayadii gashay shala asagoo banaana ayaga madaxweynaha u keenay inaan anagu leenahay biyaanateerka aan marsanay oo ceelasha nooga qodan anagu aan leenahay Rashiid wuxuu ii sheegay dhulku shala soo hubiyay oo madaxweynaha hor keenay nin wasiir ka ah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu boosas asagu uga gaday xamaaligana uu kala munaashaqo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya nin wasiir ka ah wasiirka maaliyadda dhulka iyagana loo gaday ugu dambeyn Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayay ka codsadeen in loo celiyo dhulkooda waxa aan ka cabanayno waxa meesha yaala anaga dhulkaygu waa wareegsan yahay dadka ummadda Soomaaliyeed ama reer Jubbaland baan ka banaas kana aasha iyo odayaasha iyo madaxweynaha intuba ay arkaan waxa meesha yaala dadka binada meesha ka dhistay oo ganacsatada anagu meesha ugamaan dhisin inta meesha ka dhisatay mid aan u tagin ma jiro mid walba waxaan nidhi in adeero dhulku waa dhulka wareegsan annaga leh hanaga dhisan
waa markhaati cad annaga dhisan madaxweynaha amar ka soo saaray annagaa iskale oo dhulkaas annagaa iskale in adeerow hanaga dhisan nin walba qori afkiisa ku dhista kasi ku dhibanayaashan dulman ee sida naflacaariga uga hadlay boobka loo geystay dhulkooda sidoo kale waxaa jira boqolaal ay adag tahay in la maqlo codkooda isla markaana cabsi xoogan ka qabo in la dhaafiyo naftooda taas oo kaliftay inay ka aamusaan dulmiga loo geystay